maantay waxaan rabaa in aan sharaxo filim ku saabsan sheekada nolosha dhabta ah ee dagaalyahankii ugu yaraa dagaalkii dunida labaad oo la dhaho Soldier Boy. Daawo oona iska taxadar. Filimku wuxuu ka bilaabmayaa waddanka Russia, halkaas oo famil 3 qof ka kooban ay fadhiyeen webiga agtiis, taas oo ay ku qaadanayeen waqtigooda. Midka ugu yar, Sergey Alyoskov, wuxuu ugu faanayaa walaalkiis ka weyn iyo hooyadiis in uu saaran yahay geed korkiis markay si lama filaan ah diyaarad dagaal korkooda ku duulaysay. Hooyada waxay weydiisatay ilmaheeda in ay si degdeg ah iskugu qariyaan juqda, laakiin wiilkii 6 jirka ahaa wuxuu sheegtay in uu ka cabsanayn iyo wuxuuna ku riday diyaaradii fargan. Qof kaste uu la yaabay wuuna ku dhuftay diyaaradii wayna qaraxday, laakiin markuu geesaha fiiriyay familkiisa way ka tageen. Sergey wuxuu soo kacay asagoo ku naxsan riyadiisa iyo wicitaanka hooyadiis. Haddaba qof ayaa soo garaacay albaabka asagoo u malaynayo inay tahay hooyadiis, uuna u orday, laakiin islaan deriska ah ayaa u soo gashay iyadoo naxsan. Waxay u mahadnaqday Allihii badbaadiyey, waxayna ku wargelisay in walaalkiis iyo hooyadiis ay dhinteen. Wiilka yar ma fahansano waxay dhahayso, wuxuuna rabaa in uu joogo guriga si uu u sugo hooyadiis. Islaantu waxay u sheegtay in Jarmanka soo weeraray iyo in uu ka cararo. Haddaba ciidan baas u soo dhawaaday gurigooda. Islaantu wiilkii yaraa Sergey bay daaqada ka bootisay, laakiin waa la toogday iyada intaysan ka bixin. Wiilkii 6 jirka ahaa ee Sergey wuxuu nool yahay keligiis, family iyo asxaab la'aan ah. Sergey markuu ka orday guriga wuxuu arkay deriskiisa ka gadaaleeyo oo gubanayo. Wuxuu u wacay hooyadiis uuna sii orday. Markuu cabaar orday wuxuu joogsaday geedaha dhexdooda. Wiilka yarka ah wuxuu u wacayaa hooyadiis in ay u imaado maxaa yeelay wuu dhumay. Habeenkaas wuxuu ku dubaday kaynta. Subaxii xigtay waxaan aragnaa asagoo cabayo biyaha webiga. Markay ciidanka cadowga ku ahaa u soo dhawaadeen iyo in uu og yahay in ay qatar yihiin, wuxuu isku qariyay xididada geedka. Wuu argagaxay markii maska u soo dhawaaday, laakiin muusan qeelin mana ordin. Sergey saa'id ayuu uga argagaxay ciidanka in ka badan maska. Ciidanku webiga agtiisa cuntay ku cuneen wayna iska tageen. Sergey wuxuu bilaabay in uu cuno hambadoodii. Si kastaba ha ahaatee, wiilka wuu daalay maxaa yeelay muusan cunin cunto ku filan 2 beri. Wuuna soconayay hadaf la'aan. Wuu kufaa kacaa, laakiin muusan joojin socodkiisa. Wuxuu arkay cinab, wuuna cunay, laakiin qarax ayaa gadaashiis ka dhacay, taasoo ku noqotay kadis. Wiilku wuu wareeray, wuxuuna u qaatay in qof gadaashiis ka imaanayo. Si kastuu xaaladan ku sugan yahay, geesinimuu muujiyey. Wuxuuna u sheegay qofka in uu haysto qori ee in uu cabsanayn. Wuu miyir daboolmay. Muddo kadib intuu jiifay, 2 askari ayaa u yimid. Goobtu waxaa loo xarig jaray in ay noqoto fadhiga ciidanka Russia. Intuu taliya Kuznetsov sugayay ciidankiisa roondaha ku maqan, waxay la yimaadeen cunugii yaraa kaasoo dhaawac iyo daciif ah. Markay ciidanku garab istaageen wiilkii yaraa, indhuhu kala furay wuuna isbaray. Ciidanku way qosleen markuu cunugu salaamay taliyaha uuna u soo jeediyey in uu isbaro sidoo kale. Ciidanku waxay u qaadeen kalgacayl cunuga wayna ku wareegsadeen. Waxay siiyeen biyo iyo cunto. Kalkaaliso la dhaho Katya ayaa faashadaysay dhaawaciisa, waxaana soo jiidatay shakhsiyadiisa. Wiilkuna wuxuu weydiistay in ay ku sawirto taangi maxaa yeelay wuxuu rabaa in uu noqdo ciidan markuu koro. Xataa ciidankii dhaawaca ahaa ayaa la hadlay cunuga wayna dhayalsadeen. Wiilka yar wuxuu la yaaban yahay taliyaha qorigiisa iyo biladiisa, laakiin taliyaha wax kasta wuu uga jawaabay wiilkii yaraa. wuxuuna u ogolaaday in uu ku ciyaaro baskooladiisa
oo xabad la'aan ah. Wiilkii yaraa Sergey wuxuu tusinayaa taangi calooshiis ku sawiran, wuxuuna ku faanayaa in uu rabo in uu ka mid noqdo ciidanka. Wiilku wuu bogsaday. Kalkaaliso Katya waxay ka codsatay in uu wiilka la joogo guutada ciidanka. Wuu ka diiday, wuxuuna ku andacooday in aysan ammaan u ahayn, uuna rabo in wiilka yarka uu geeyo xarunta xanaanada agoonta. Ciidanka waqtigooda firaaqada ayay la qaataan Sergey. Kuwo badan ayaa soo booqdaan maalinkoo dhan. Waxay u ogolaadaan in uu ku ciyaaro soo dhawaysadooda. Maalin askari ayaa aaday taliyaha, wuxuuna ka codsaday in uu wiilka la joogo guutada ciidanka. Ciidanku waxay xiriir fiican yeesheen wiilka yar, wayna ka fikiraan noloshiisa. Joogistiisa waxay ka qaadaysaa culayska dagaalka laabtooda. Si kastaba ha ahaatee, taliyaha ayaa ku adkaysanayo in wiilka loo diro xarunta agoomaha si naftiisa loo badbaadiyo. Maalintii xigtay cadowga soo weeraray, ciidan badan ayaana la dhaawacay. Gaari ayaa yimid oo u qaaday Sergey xarunta agoomaha. Taliyaha cunuga hadalkuu u soo koobay, wuxuuna siiyey baskoolad alwaax ah hadiyad ahaan. Wiilkuna beddelkeed hab ayuu siiyey, isagoo ku andacoonayo inuu ka baqayo ammaanka taliyaha. Taliyaha ayaa laab qabooway oo go'aankiisa wuu beddelay. Wuxuuna weydiistay in ciidanka ka soo qaadaan Sergey cunugiisoo kale. Habeenkaas ciidanku waxay raadinayeen tuuto uu xirto cunuga. Aad bay u faraxsan yihiin inuu Sergey la joogo. Taliyaha soo kiciyey Sergey, wuxuuna siiyey dharka tuutaha. Markuu xirtay, wuu orday isagoo u eg ciidan run ah. Ciidanka kale waxay ugu wacayeen cunuga ciidanka ah. Intuu ku ordayay agagaarkooda, Jarmanka waxay ku soo qaadeen weerar cirka guutada ciidanka. Askariga wuxuu u qaaday Sergey meel ammaan ah si uu ula saf dagaalamo ciidankiisa. Tirada ciidanka dhaawacmay way kordheen. Sergey wuxuu iska dhigayaa nin hawlkar ah, wuxuuna u keenaa biyo ciidanka haraasan. Mid ka mid ah ayaa weydiistay in uu akhriyo warqad ay soo direen qoyskiisa, sababtoo ah waxaa indhaha uga xiran bandage. Wiilka yar wuxuu rabaa inuu caawiyo, laakiin ma yaqaano sida wax loo akhriyo. Wuxuu qabsaday warqadda, wuxuuna camirtay wax ku qoran oona ku andacoonayo in lo'da askariga ay guriga ku laabatay iyadoo amni ah. Markuu askarigii dhahay malihi lo, kuwo kale ayaa dhaheen in uu sheekada sii wato, wuuna qoslay. Wuxuuna u akhriyay qof kasta warqadiisa isku qaab, wuuna ka qosliyey. Aragtida xigta waxaan aragnaa Katya iyo taliyaha oo wada hadlaya. Labadooda waxay u egyihiin in ay is soo jiiteen, laakiin maysan isku muujin dareen. Intaas kadib, Sergey wuxuu u sheegay taliyaha in uu yahay mid si habsami leh uga dhex muuqda guutada. Wiilka wuxuu arkay xarun ciidanka oo lagu burburiyey weerarkii. Taliyaha wuxuu barayaa in uu koofiyadda iska bixiyo si uu u xushmeeyo ciidankii dhintay. Maalintii xigtay, wuxuu ku qalqaaliyey taliyaha in uu siiyo hadaf shaqo, waxaana la siiyey hawl in uu warqadaha u qaybiyo ciidanka. Wuu dhameeyey hawshiisa si wanaagsan, waxuuna ka keensaday ciidanka in ay u niikiyaan. Maalintii xigtay, Sergey wuxuu aaday meel ka baxsan xarunta asagoo wato doobirkiisa. Intuu ku ciyaarayay, wuxuu arkay qof lugtiisa oo ka muuqata cooska. Wuxuu u orday guutadii ciidanka kuna wargeliyey sahankiisa. Ciidankii way shakisan yihiin, laakiin way iska raaceen wiilka. Markay gaareen cooska agtiisa, waxay heleen 2 basaas oo Jarmani ah oo isku qarinayeen cooska hoostiisa. Basaaskii waa la xiray, wiilkana waxaa lagu ammaanay garashadiisa. Habeenkaas taliyaha wuxuu tusiyey Sergey warqadaha sharciga ah ee uu ku korsaday.
hadda si rasmi ah ayuu u noqday wiilka aabihiis. Sergey wuxuu og yahay dareenkuu taliyaha u qabo Katya. Si uu ugu abaalgudo naxariistiisa, wuxuu u qaaday in uu ku qalqaaliyo iyada. Labadooda waxay arkeen in ay la hadlooso nin kale, waxayna u qaateen in ay qof kale ku haysato. Goobta waxaa mar kale soo weeraray Jarmanka. Markan Sergey wuxuu caawinayaa ciidanka wax kastuu awoodo, asagoo u qaybinayo rasaas ciidanka safka hore joogo. Laakiin ciidanka halkaas jooge waxay ku amreen in uu gadaal ugu laabto harka, maxaa yeelay meesha waa khatar banaanka. Markuu harka yimid, wuxuu arkayaa taliyaha iyo kuwo kale oo argagaxsan, maxaa yeelay xiriirka mobeelada ee korneylka ayaa dhumay. Askari ayaa loo diray si uu iskugu xiro filooyinka go'ay. Sergey ayaa daba raacay askariga, wuxuuna arkay in uu dhaawac halis ah yahay. Wuxuuna weydiistay askarigii dhimanayay sida la iskugu xiro filooyinka keligiis, ayaana sameeyay. Xiriirka ayaa soo laabtay, ciidan badan ayaana la wacay. Wiilka 6 jirka ah qof kasta noloshiisa ayuu badbaadiyay. Waxaan aragnaa taliyaha iyo Katya oo ku wada hadlayo webiga agtiis. Taliyaha ugu dambeys wuxuu u qirtay jaceylkuu u qabo, wuxuuna weydiistay in ay hooyo u noqoto Sergey. Katya way faraxday, laakiin intaysan wax dhihin, askari ayaa u yimid, wuxuuna siiyay taliyaha warqadda ay ku qoran tahay in ciidanka xaruntooda laga kala diray. Maalintii xigtay, ciidankii dhan waxay u baxeen xaruntooda cusub ayagoo la socdo Sergey. Si kastaba ha ahaatee, wadadooda waxay la kulmeen miino ayaa ku qaraxday baabuurtooda. Taliyaha wuu dhaawacmay. Taliyaha waa la dhaawacay iyadoo kooxuhu ay digtoon yihiin. Sergey, qof oo ay isku dhawaayeen, ayaa ku dhintay qaraxa. Wuu ooyay oo isku duubay taliyaha. Waxay qaadeen ciidanka dhaawaca ah, waxayna u qaadeen xaruntooda cusbeed. Markay gaareen xaruntooda, waxay la kulmeen taliyaha guud ee ciidanka. Asaga xataa waxa uu la yaaban yahay wiilka hamigiisa, wuxuuna u hambeliyay taliyaha in uu haysto wiil saas u firfircoon. Maalintii xigtay, qaybtooda waxaa lagu abaalmariyay calanka ilaalada. Wiilkana waxa uu u ballan qaaday in uu dalkiisa difaacayo markuu taliyaha siiyay billadiisa. Habeenaha ka mid ah, xaruntooda si xun loo soo weeraray, taliyahana lagu afduubtay. Sergey waxa uu u ooyayaa aabihiis, oona isku dayay in uu badbaadiyo. Asagaa iskugu wacay ciidanka kale. Ugu dambeyn way soo badbaadiyeen taliyaha. Maalintii xigtay, Sergey ayaa soo gaaray taliyahoo dhaawac ah, xataa gacantiisa dhaawac ah. Intuu isku dayay in uu badbaadiyo taliyaha, wiilku hadda waa qayb aan la goyn karin oo ka mid ah guutada ciidanka. Ma haysto qoys asaga ka dambeeyo, wuxuuna u raacayay ciidanka meel walba oo dagaal ah. Filimku waxa uu ku dhamaanayaa iyadoo guutada ciidanka ay u hayaamayaan xarun kale. Cod gadaal ayaa laga maqlayay in uu ka qayb qaatay dagaalkii Stalingrad, wuxuuna la gaaray dalka Poland. Ciidanka hadda waxaa loo yaqaanaa askarigii adduunka ugu yaraa abadan, iyo sheekada haliyeyga geesinimadiisa darteed hadda ayuu ku faafay adduunka si looga maqlo. Subscribe-ka waa ii dhiirigelin, like-tana nagu taageer.